halkudhagyada ogaal reediya ayaa waxaa ka mid ah runta sheeg xataa hadday dacarka qaraadhahay. la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dhanka beeshiisa Maxamed Xasan Xaad ayaa ku tilmaamay shirka lagu dhisay maamulka Jubbaland State dadka isugu yimid inay yihiin dadkii ugu liitay Soomaali. waxaa kaloo uu raaciyay in awoodda ay Kismaayo ku joogaan ay tahay ciidamada Kenya. wuxuu kaloo sii raaciyay in ciidamada Kenya ay la dagaalamayaan oo ay ka saarayaan Soomaaliya. dowlado ka waaweyn Kenyana ay dhulka ku jiideen asagoo ka hadlaya dowladihii gurmadka ahaa ee UNISOM United Nations Operation in Somalia ee sanadihii 1993 ilaa 1995 waxaana ka mid ahaa hadaladiisii. adeer waa maadsan tahay. horta waxa kani jubbooyinka iyo maamulada waxa meesha laga sheegayo runtii si looga hadlo hadda caawa uma yaaliin. wax iska been abuuraho been sharci loo raadinaa weeye. waxaan aaminsanahay 20 dhowrkii sano Kismaayo kolba kooxa qabsanaysay intay is abaabusho. kooxdii ugu liidato intay is abaabushay meeshaas wax dhalanteed oo aan soconayno oo maaragtay muxuu ahaa laba ogaad doono inay ka sameeyaan isku dayay annaga kolba noogu muuqataa sidaasayna ay ku sifaysan tahay. ra'iisul wasaare waa mas'uulka hadda Soomaaliya oo saddexaad runtii boolisiga goboladana asagay hoos tagaan. wuxuuna xaq u leeyahay gobolada iyo shacabka Soomaaliyeed inuu maaragtay cadaalad u qaybiyo. intaasoo gobol uu tagay barasaabyo u magacaabay istiraatiijiga dawladuna waxay ahayd si ku meel gaar ah in maamul goboleed aan inta loo gudbin in gobolada gobol loo dhiso si loo ogaado marka hore nabadana loo xaqiijiyo gobolada laftooda aan loogu dhibtoon xuduudahooda iyo dadka wax ka noqonaya inay degaan yihiin in la xaqiijiyo. tuulo laga soo dhiso degmo ilaa gobol saas marka gobolkaas u dhismo in hadhow mustaqbalka dhow inay u baxshaan guddi markaas qoboraa oo gobolada say isu qaadan karaan isu waafajiya. istiraatiijiyada dawladda waxay ahayd mid cad oo qeexan. maxaa yeelay hadda waxa ay sameynayaan dawladda wixii laba laha hadduu marka maamul goboleed yahay soo looga baahna dawladdu inay maaragtay tusuurka ay sameynayaan mid dawladda iyo midka u yaala qaranka oo tusuurka Soomaaliya ah iyo midka ayagu hadda ay sameynayaan xagee isaga xirmayaan waa wax su'aal meesha ku jirta way. maxaa dawladda xiriir lama laha marka waxaad moodo inay dadka lagu khaldaa laakiin aan wax Soomaaliyeed ahayn oo dana shisheeye lagu fulinayo waay iyo dad muqallasiin oo maaragtay muxuu ahaa kontrabandira oo ka soo horjeeda qarannimada iyo Soomaalinimada oo la og yahay xataa oo kulligood dawladahaas dariska wada muqallasiin u ah oo wax Soomaaliya ay ku yar yihiin. korsanyeeriga iyo warka iyo maaragtay waa laga yaabaa inay Soomaali u abtirsadaan laakiin xaqiiqada waxay hadda ka shaqeynayaan wax Soomaaliyeed maaha. Soomaaliduna way ogtahay meel walba meel ay joogto waa garanaysaa. waxaan aaminsanahay inaysan ku sii waari karin waxay dhoobayaan meesha. waxayna ku agtahay ciidamada Kenya intay meesha ka baxayaan waana ka baxayaan. Kenyana waa cadow ummadda Soomaaliyeed loo soo diray. markaan ogaana wixii ka dambeeyana culays naguma hay doonto kuwa ayaga ka waaweyn oo ka xoog badanaan iska fujinay. ayadana hadii Ilaahay ku admaayo ummadda Soomaaliyeed saan u garatay waana la dagaalamaya insha Allah ciidanka Kenya hadda alaan. قال
dhegaystayaasha iyada qiimaha iyo qaayaha low doodeennu caawa waxay ku salaysan tahay sidee ayaad u aragtaa hadallada ka soo yeedhay la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xasan Xaad idaacadda reeriyo ogaal iyo maamulka reeriyo ogaalba mas'uul kama aha shakhsiga dhiibanaya aragtidiisa ee waxay ku eg tahay oo kaliya maskaxda ay ka soo maaxanayso waxaan dadweynaha nala soo xidhiidhaya aan ka codsanaynaa inaan laga tegin ixtiraamka iyo karaamada shakhsiga dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg fikirkaaga oo koobanna soo jeedi waxaa la yidhaahaa waamo waxaan ka soo wacaya magaalada Edmonton waxaan u arkaa horta xaad uma arkay waxaan u arkaa xaadsan waa islaam xun oo gabowday oo ay oo af xun oo nijaaso xaaraan xun oo ehlunaar oo waalidiina wuxuu ku hadlaana garanaynin ismaaciil awgiisana ma arkin aabihiisana ma uusan arag marka waa wax xaaraan xun oo edebna daran akhlaaqad lahayn isaga iyo kuwa dugaagan uu leeyahay waxaan u hayaa afhayeen dameeraha harartaan dameeraha afyaqaaniine annaga dameerana ma naqaano dad baan naqaynay laakiin kan dad maaha waa ehlunaar xaaraan xun oo ay akhlaaqad lahayn waan ka xishoonaynay in badan laakiin waxa nin dameer وفهميو من ضبط دقم كرانا معها إن آدم معها حتى كتبنا والله دي القرين هنا شاء الله سدو دونه وحان هذا الكي كسو قبقوين يا إصلاة حاتن تدواتن جل وهي تدو برين كما يرتي قرمون ينجازون لتاقيها أرك حمديسة يا وحان جعلان لحين إنا من ميديا كاركن أفكيسا الوصوع على إذا مركوري مركو انتو سكسمايا كهادلين حاتن ما شفان أوضح يا هذا الكيده waxaan rabaa inaan ka hadlo kan prime ministerka lagu sheegayo caasha dheer waxaan ugu yeerayaa daarood dili ninka daarood uu la fariistay uu jibiyay waxaan u malaynayaa qoladan uu sheegay isaga laftiisa ma ahay waa la haysta kolaba wuxuu yahay waa horaarsame midgaan aan u malayn kaasna intaasaan kaga baxay wadaadka culusow magaca quruxsan loo xasan sheekh maxamuud la baxay yaan isagana in yar u sheegaya horta wuxuu aad ugu caraysnaa daarood iyo dayaarad daarood nin uu tabar u heli karo maaha waa dadkaas ilaahay carrada ka badiyay dayaarad isagu hayaa maalooba meel dayaarad ha u fuulo dhir ha aruursado laakiin waxaan u sheegayaa culusow hala yar oo hadde waa kol waa dameer isagana wax faa'iidana ma laha dadna maaha dugaagna maaha tix yar baan u marinayaa war culusow wanaagga ku mari waayo macaanka ku sali waa madow iyo casaan noqo midabkaaga dhowr jeer marba nooc soo baxo malax iyo hungaac dhiig madaxana dugo sukun soo shuba waa waxaad macnaysaa intaasaan kaga baxay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي يا ضمها تصنتهي dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg fikirkaaga koobanna soo jeedi السلام عليكم حسن هذه بعض كل دادين يا راديو قال عادي أبا نص رامي أو أسرار فأسمطر أنا قدوميها صوت أفريقيا قبلها جوجا بعد بوتلان وحان توص وتاغيرينا أبدير أيوة سكول مانسن بندير ساكي لصاري عدكي تصوركي بصحي magaalada Kismaayo saddexda gobol ay ku saxeen ayagoo ka kooban ismada waxgaradka uqaasha suldaamada waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa sida wanaagsan 870 ay midna diideen midna ka aamusin ay ku saxeen oo ay rabitaankooda ama siirkooda ay samaysteen midda labaad waxaa ii dheer ninka la yiraahdo xasan xaadi wax loogu yeero ma aqaano xamar ka soo dhawaaqa waxaan aad iyo aad uga xumahay inuu al-shabaab u xirsiiyay
markuu yiri waxaan ku jihaad baan ku soo qaadaynaa Kismaayo wuxuuna sheegay Kismaayo jihaad baan ku soo qaaday Kenya ka cararto dadka kale waa irsaynaa oo meesha jooga oo ilaa Liboya naga soo harayna waxaan u sheegayaa odaga sida xeeyga u dhawaaqa aan aqliga lahayn waxa weeye xamar u badada aysan kartidna ma jirto dad aan wax yeeli kartana ma jirto hawiyo dhan ma matashi waxa Kismaayo ragga masiirkooda ka tashanaya hawiya ku jira inta weeye hawiya ma amatali kartid hadalka sheegaysidna waa hadal been ah oo aad ku hadlaysa أبكي الشباب قف كتنا وبجدا إنا طايلة تليها الشباب وحاول يهوينا أبكي شكوما اللي كرتت وتقدر انتهي أسكا آدن الشنكرين هري أبين القبيل كتاروت كعايشو وعن كل النهي أنه كو جوابي مينو هوي ودنا وعنه أسكي نقاسين مينو وعن كل النهي وحاطاي باش الشيطين أضوح كقاري كتمي جفتو السلام عليكم هذا الكيقال كاشكوك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي يا ضمها تصنتهي dhagaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg fikirkaaga koobana soo jeedi magacaygu waxa la dhahaa Anwar walaal aye awal ka soo hadlaya London waxaan la hadlayaa ana ku hadlaya magaca ururka beelaha timajirayaasha oo uu xaad madax noo ahaa waxa jeclaan lahaa in uu ka waantoobo oo uu xaad hawshiisii ku noqdo sababtoo ah xaad timaha ayuu jari jiray baar abu ayuu wuxuu ku lahaa baar ubax agtiisa timajare ka ahaa marka haddaan nahay baahda timajarayaasha Soomaaliyeed xaad waanu u darsanay timajarihiisii waa inuu ku noqdaa laakiin saawarow timajaridu waa xirfad weeyaan wax yar ma maqashaa waa ku maqlaa timajaridu ceema waa xirfad weeyaan marka maxaad ka dhiiban lahayd fikirka waxaan ka dhiiban lahaa injineerku waxa lagu ogyahay inuu guryaha dhiso waxa lagu ogyahay dhakhtarka inuu dadka daaweeyo timajarahana waa xirfad inuu dadka timaha u jaro marka taas baan ku waani lahaa inuu ku noqdo oo uu ka baxo beelaha uu hadlay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhagaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg fikirkaaga koobana soo jeedi magacayga waxa la yiraahdaa Xaliimo Naftaaxo marka hore anigoo ka faa'iideysanayo fursada aad siiseen waan idin mahadcelinayaa fursada aad siiseen bacdar xisaabi iyo ogaal maanta waxay taagan tahay reer Jubbaland wanaaga ay gaareen in la shaasheeyay taagan tahay waxay reer Jubbaland ka guureen cadaalad darro iyo dulmi bay ka guureen cadaalad bay u guureen dulmi la roorka xamar iyo Hargeysa soo tuurayso way ka guureen wayna ka tanaazuleen awal lamayna ku jirin haddana way go'aan bay ka gaareen waa Soomaaliya 22 sano go'aan gaari weydaan oo khibrad ka qaadan weydaan midka sameeyeen reer Jubbaland midkii ku dhacayay dadka Hargeysa iyo ka yimaada xamar dulmi la roorka ay la soo marayeen waxay ka barteen way isku duubni bay gaareen ilaahayna waxaan ka baryaynaa maamulkooda inuu la disho 870 nin baa baasgaraysay oo oday baa baasgaraysay inta suurka ay Jubbaland saas waan sax ku yahay adduunyaduna uu ugu marxaati kacay ma ansax yahay ha ku mashquulina Kismaayada cusbayd ninkii lahaa la tagay mana arkaysaan war ninkii xamar jooga ee ninkii xamar u dhashay salaadi waa tukan leeyahay Jubbaland raaska booni Jubbaland raaska bismillaahi rahmaani rahiim markuu dhawaaqada akhrido oo Jubbaland soo dhashay Jubbaland raaska booni Jubbaland iyo raaska booni wax ma qofsato gabdhooda way ilaaliyaan wiilashoodana way ilaaliyaan wadankoodana way ilaaliyaan hal mitir wiil Jubbaland u dhashay hal mitir xamar uma galayo ma dhaafay hal mitir xuduudiisa ma dhaafay deegaankiisu ku yahay sawaa ninka la dhaho xaad ee shaqada ka dhigay dad ka yimid muxuu ahaa ka yimid North Eastern iyo ka yimid Kinel 5 baa wadanka qabsaday asagoo Kinel 5 ka yimid Soomaaliya xoreyn jiray weligiiba weligiiba Soomaaliya xoreeyay ninkii Kinel 5 ka yimid baa xoreeyay tanna Soomaaliya hadda waa lagu kala baxay la idin xoreyn maayo waalidiina waa la isku tuuray baa la idin ka gaaray